بسم الله الرحمن الرحيم. haddaan ka hadlo shirka ka socda ka bilaabaya Britain hadii la yiraahdo magaalada London ee Soomaaliya loo qabanayo horta marka hore waxaan u cadeynayaa shacabka reer Soomaaliya iyo adduunkaba in horta anagu shirka Soomaaliland badan yiraahdo ama shirkaasna khusaynin anagu markii hore laba waddan isku darsadaan ahayn بعد لو ودنا يستلي بانهن ولدي وحنا لا دغالناي Soomaaliya gacanta ku haysay subhanahu wa ta'ala ilaahay baa anay guushina siiyay ka bacda wax dadka ku hoostay 19 keenay qarannimadoodii sida hawsha yalla ka u baxday in soo ceshano ilaa 19 la waxaan dal dhisan iyo dal qasam oo jaar ah ayaan ahayn ilaa 19 kii dowladda baa qabtay shirkan dambe marka Soomaaliya dhiska ah waxa uu dambeeyay Kenya dhil oran jiray arrimaha ka socda marka Soomaaliya aan bakan hada markii hore ahaaday maaha arrimo dan dadka Soomaaliya oo ka shaqeynaya wadano ay gacanta ku hayaan oo ay wataan كومبانيا واوين أدونكا الشدالكا أياوي وقوده واوين أدونكنا أي كدام بيان لو هشيسي هاي Soomaaliya waa loo tashaday kheyraadkooda gurtaa loo tashaday inay dawlad samaysan baa loo tashaday in la jarjaro oo dawladda qabaa'il ku dhisan oo waliba aan cadaalad ku dhisneen qaarkood dadka masaakiinta dusha ka fuuleen inta ciidamada soo shaqaad ka haysteen shisheeye ayaa la sameeyay qurcad badeed baa loogu marmarsooday si loo gurto kalluunkooda si qashinka loogu daadiyo nuclear waste hadda wixii way soo dhaaftay dawladda hadda la dhisay waxa weeye waa dawladda company-yaal kale leeyihiin ra'iisul wasaaraha xoole oo qayb ka yahay company-ga دسميون يرون مكيلة دورتم حسن عشاق يركهر إلى some oil and gas ليلا الشير هو لنا كها director unit أفريقيا كها كان إمك يرى أردي مكان سلام وحصان علينا هي ميلاد محمد سياد برنا وحوي وحكس على دتش shal buu ka socdaa oo isna maal galiyay soo baxniga ku soo baxay ku maal galiyay marka waa laba nin oo jirka Soomaali leh laakiin qalbi shisheeye leh adeeg shisheeyana wada ayaa weeye waxaanu adduunka u sheegnaa jimcada quraan dhaxas u sheegnaa Soomaali meel ay joogto u sheegnaa in qorshaha magacaasi dib oo magacaasi guumeysiga dib u qaybisa Soomaaliya markii Talyaaniga loo jeedo Soomaaliya Itaaliya in laga kaco Soomaali meel ay joogtaba saawan maalintii dadka reer Kenya uu ka hadlayay MP ga han jiray waxa weeye wax laga dhiidiyaa weeye laga kaca weeye labadana waa traitors high treason bay sameeyeen waxa lagu marmarsoonaya dhalinyarta Soomaaliya baa lagu la dagaalamayaa baa lagu marmarsoonaya Soomaali danta Soomaaliya iyo xalka Soomaaliya gacanta Soomaaliya ku jira anaguba markaan dalkayga dib u sinay shisheeye nooma iman shil nagumaysiinin shirkii Boorame waan iska diidnay arrintan waa arrin Soomaaliya leedahay waxaan sameynay dhaqan Soomaaliyeed hab Soomaaliyeed ku kala baxnay ku heshiinay marka waxaan arkayaa anigu waa labadan waa number 1 enemy of Somali society meel kasta jooga Soomaali ingiriiska waa tidday buu leeyahay inuu dantiisa raaco Soomaali khiyaameeyo taariikhda dib u raacid waa cadu Soomaaliyeed oo ingiriis waliga ahaan jiray marka waxaan leenahay ka foojignaada dadka reer Soomaaliya waxaan leenahay meesha waxay ka soo baxaa wax ina yeeli karaan Ilaahay wax ina yeeli karaan inaga subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay dadkii Maxamed Siyaad la dagaalamay SSDF
magaalada USC ahaa waxaan leenahay isqabcaa isqabsada arrintaas inay suurto gasho ka ilaaliya baan leenahay Soomaaliya ka leenahay la gacmaha isqataa Soomaaliya Italiya tiin qabaa'ilka iska dhaafa idinko midaysan danahiina wada qabsada differenceina dhamaysta anagu diyaar baan nahay gacanta ku siino haddaan reer Soomaaliland. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.